بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن أونا سلام بأخيرته هودا نغلا صوتال كنواساب في كنا سودا ودا برنامج جار أهو نكوي جدونه أنتي نبضن وحال صوتان إن بالودة شاد كويت هيمت لبعض كويسة تديوغا سومالي ده كوكلا نول ده فيها الدنيا ده شيكوين حيس بدن أي شاد كلا قد حلي وحنا نجعلها برنامج كنا جار كأن نكوي جنو بالمرقام كوحوي هي dhibaatada jaadka iyo waliba qodobo kale waxaana maanta barnaamijkan marti ku ah Maxamed Axmed Caalin oo dadka badankiisa oo yaqaanaan oday Axmed Caalin bal waxaad warbixin kooban ka samaalintii ugu horeysay hadii aad xasuusato aad inta jaad soo iibsatay ama lagu qaaday soo fadhiisatay dadanaad bilowdayba sarunta way fogay taariikhdaas anigoo yar baan bilaabay sarunta waxbarashada nabcaw ka baxsan jiray waxaan orin jiray maalmaha hore nus saac la siiyo ama heliyo dadka waxay siiyaan baawur waxa jirta caanoolayaal waliba family-geego badnaysa gaarigii Soomaali guleediyo gumar bay tagi jireen jaadlayaashay geen jireen iyaguna qurac afaar xilba jaad ka soo qaadi jireen waxaan astaahbeen habeenada kamida inaan uu nin ugu dhirbaxay markaan ugu aanan garanin jaadka anigoo oo yar oo de markaa yaani dadka marka jiirada loo bixiyo kala ayaa intuu mijin cunayay tii afraad soo qaatay dadkanikaas dhirbaxo ayuu guruftii war waxa muxuu markii dambu nin kale ku yiri uu keefay lacagtiisa ayuu ku keefay iskaga tag horta xilligaas waxa ahayd waa 5 state-kii baad jaajoojinta kadib un bay daado had 3 state-kii la joojiyay afar state-kii baad oo markaa aan baraba ku bilbilaabay 5 state-kii waqtigaas way ahayd laakiin haddana muddo dheer waan yara joojin jiro fursad aan ku qaylo uma hayn laakiin markii jeeniya roganta ee aynu qaxnay ayaan sida runta horta balwadeeda xoog bilaabay waxa ka yaroysay bari dukaan adhaysay walaal jeena walaal tiin baran la hayay oo aan laba mijood oo tuugaan la ii soo gogoyn jiray labana la igu soo gogoyn jiray afar ninkan aanu diranayaana ila qaadkii baan qarsanayaa oo waan mataqaanay tuu mafishkooda la gali jiray ninna wii soo gogoyn jiray isla family-geeyga oo laba qaadan jiray laba qaadan jiray waana qaadku tarban qaaliya baa hase yeeshee intaan ku yar maqanayna meherada waa la iga gacan saari jiray كلي إن قادك لباتديسو waxay ii bilaabatay xilliga qaxoontiga waynu iman doonaa bal hada maalmihii ay kuugu darnayda waxa jirta qofku markuu qaylo dadkan qaylo sheego bay ku tahay bal waa mirqaamo oo dadana intuu mijin cunay buu mirqaamay marka adigu maalintii ugu horeysay isleedahay inta jaad intee waad mirqaantay bal hadda xasuusato horta waan xasuustaa dhiigan dadka ayaa ku kala kaanana jaxow marqaankaygu wuxuu ahaa horta inta aan maanta doonayaan ku soo qaadaa 3 jeer aniga aan inkastoo iga dirin saaxiibadayda aan sheekooyinka ka haya oo inuu guda geli doono nin la oran jiray Balanyo oo dadkii koonfurta ah askarta ka tirsanaan jiray gumburaha ayaa wuxuu ii dhiibay qaad uu soo dhacay qaadkii buu iibi anigana joolis baan qabo inaan aan cabaaba gumbura leeyahay bariga deegaankayga ku ooli jiray jaadkana waa laga soo fogay jaadka waxaana laga fogeynay dama wixii xasaasiye hilbiyo wixii kala oo dhan laakiin qaado ugu daran ayaan meesha ugu tagay aagada aanaaba marka la keenaa oo aan cabayo in loo baan lahayno geel igu bedelaa xabaadan ku dalay habeenada kamida ayaan qaadkii fara badnaa oo maqaaxi xadiis ba laga akhriyo maqaaxiya oo ay tahay ma taqaanay dadabtii aan fadhino ayaa dhinacna laba qoriyo xabaa waaweyn ka saaray dhinacna tiliigii ba iga yaala kadibna show waan waday tiradii habeenka ma cayim karo qaadkaas waxa kaayada rag badan marba godladana u kacaan goor ay tahay 3 galabnimo dadka si kala rawaxayaan ayaa waxaan damcay inaan kaadi tago kadibna waan dhaqaaqay waxaan dareemay markaa yaani jabaqda dadka kaadida kala fogo waan waxooga yar lugay oo arka ninka gumburayo iyo bilgooda intay isu jiraan banka bartankiisa markaan marayo ayaan kaadida u fadhiistay waan markaas leeyahay ku dhacday markii aan kacay baan magaalada u eegay mise tiriigtii baa ka haysa waxaan ka socdaana ugu yaraan 7 kiiloomitir ayaa markaa magaaladii ka lugay dabeetana waan soo noqday maqaaxidii la rabuxinayo oo alaabtaydii niisuu kaaga jamaanay wuxuu xagaad qabatay waxaan mid halkan lacagtii qaadka ka soo qaadanay ninka lacagtii qaadka inta lagu maqnaade xagaad ku maqleen sarta goorda baan ku wareelay waan mirqaamo ordu dhibaatadiisa kooba taasay talabaad raacda iyadoo way iska muuqataa wax weeyaan habeenada kamid ah iyadana qaad
laii dhiibay qaadkii anigoo iibinaya ayaan deetana mirqaankii horta waxa weeyaan waa waaliyun marka aad xad kala dhaaftay qofkii mijiin 2 3 4 ugu dhaafana ayuu mirqaankan la sheegaa imanaya waa haddaba mirqaankan waa maxay marka la qayaxo ilaahay libid buu ugu tagay maskaxda dhiiggaaga inay ku dhacaan dhiigga xawliya ayaa kacayo dabka iyo shaaha kulul iyo nidaamka isbedel baa kugu imanaya marka maskaxda fikir kasta oo kaa iman jiray ood ku meel maraysay qalad buu kaaga imanaya sida qaladka ragii horta waxaan tiriyay ilkahayga hoose ilkuhu maan tiriyaa 7 midhow baan ka dhigay dabeetana 3 nin ama 4 nin ila fadhiyay hebelow ilkahaaga hoose waa imisa maasoo nin walba gacanta saa idhaahdaa kawla waa lix warniyo yaabkana maxaa adiga maxaa 7 ka dhigay kalbadii tiriiga aan ku sameynayay baa taala xabad ilkihii ka mid ah ayaan bartii kaga bilaabay gag waan buriyay sida runta ah markaan xabadii iligi buriyay horta marka hore waxa kii horeysay cawdii baan ka saaray bahal sidaas saa ugu waday waxaan ka fartayda halka kala jaxna bacdi gashay markaas kalbada ku bilaabay markii daba maxar baan la doontay sida runta ana ilkaha waxay ahaayeen ilkiya carra mara midga dhicmaan siri hadda ilkahayga saasi 60 mid ku dhan yahay laakiin iligii maalintii aan la burburiyo ka saaray wax badan ku wadaatay hadda way muuqataa waxaan daatana ku dhacay barkad baa markii dhiig istaag waa iligii saaray xinjiriga yimaadeen ila xoog baan ku lulay ayaan barkad galay barkadii baa daatana naqaskaygu joojisay hadana xabad irbada baa leeygu marka barkada mood ku dabaanas waxaan sii dhiig ha ku qabo barkada kale waana salaada was qaboojinay sarunta ma maalintan dhibasho ugu dhawaay aan ku baqtiin barkada dhexdeeda laakiin waxay lahayd birahan loogu xiro hiisha loo dul saaro kaasan qabsaday markaan ku arkaysa marka gali ciidina arkay ilaa dirqi salan kana gurigooda baa kaga soo baxay horta mirqaankaay dili gaarayna ka mid buu ahaa waxaan se iligii dareemay 5tii galabnimo markaan toosay aan carabka sidaa idhi meeshaydii bannaan arkay ayaa warwarka iyo afkaygii bishilnaa iyo farxumada maanta igu timid markaasaan dareemay waxaa jirta habeen aad mirqaantay sidan sheeka ku maqlay oo aad istiri muxuu ahaa yar jimicso way jirtaa ma jiro laamay cararto way jirtaa sababta waana sheeka xaqiiqo dhacday barnaamijka xogogaal baa laga sheegay muxuu ahaayay jaraa'idadii loorin jiray xorriya ayaa lagu soo qoray calaamadaheedii baa iga muuqday marka ilkaha maanta ay xidhanay waa ilkii habeenkaa iga daatay 2 feerood baa jabay 9 qodob ee wajigayga imika ku yaala ayaa habeenkaa la tolay habeenkaa qaadka waxaan la iibin jiray markaa nin Allah yarxama caawinaga hooseeya cabdiyeetiya loo inta walaalkay buu ahaa dhawaan buu dhintay markaa waxaa ka iibsan jiray qolyo madaxtooyada iyo dad noocaasa qaad fayaan loo oran jiray buu ahaa aad u kulul 30 mijood bay noo dhig haseeshe nimankii meel kale qaad ka qaateen si uu yeeleen buu lacagtooda bari waan ka qaadayaa 30 mijood xareeyo 2 mijood bay gala baxay sidii baan ku tagay waxaan tagay siinay xaafadda oo cidla marka habeennimadkii 2 habeen hore soo jeed qadon waan seexday goor duhurkii ayaan soo toosay فيديو ني لورين جينا 16 baan imid qolo meel bariis iyo wax ku cunaysa waanu imid bariiska waan la cunay waxaan sili bas berga ma jirin iska lawaa oday kaliya loo jaab ayaa bas keeno koba dhinaco isaguna mu badnayn waxaan damcay markaa inaan caleed iskiir jiro laba mijood jaada meesha ku cuno hase shay musalsal wii charge markaba diqsinimo ku ridaya waxa ku ridaya ma taqaanaayay shay kasta oo aad hawlood lahayd u ka fariisinaya ama shay kasta oo meel labi hadaad haysay oo markaa qaad cunto tusaale gabar baabada fadhida waa qaadli nin xaraareysan baa u imanaya wax yar oo hadoo ka amaana ah ku aatay ama hooyada caanay had baa jabada ku haysta na walaal mijina ama way u diidaysa na laba siibaad oranaysa ila maalku waa faxay tara qaadkii baa waxa niman ila joogay tool mijood jaada baan ka sii markaba deeqsinimada ugu bilaabay markaan laba cunay qaadkii 8 iyo 10 mijood oo fayaana ayaan halkii kurka kaga gooyay kaliga ilaa labadii duhurnimo ilaa iyo 8 iyo wax la markaa ama 7 iyo barkii meelaha kadib markaa soo baxay dareenkaygu wuxuu siiyay 92 October baa ahayd 17keedii wixii siinay dhaxani jirto markaa rayigii saliimka ahaa ee maskaxdayda ka soo burqanayna wuu lumay oo 8 iyo 10 mijood baan cunay waxaan ordaano waan ahaan jiro sports commer dameereer baa soo aad baan u dheerin jiro orodkayga kadib waxaan maskaxdayda soo dhaatay waa dhaxan waa inaad sii guclaysaa ilaa iyo xaafadii oo Axmed Guri hase yeeshee intii aan lugeynayba 200 oo mitir oo dalacada siinay meesha la korkeeda ayaa waxaan xasuustay bari ayda dhingada shalay aan ku qaadan jiray aan ku dhuftan dheerin jiray 5 state kii dameereergana
waxaan dabeetana sameeyey bal inaan waan daalay maan si markaa ay maskaxay soo turtay bal orodkaagii berigii malaa waa deeqaadka ku dilo waad gabowday bal caawa tijaabi baan sin haseeshe xawligeygii markaan iska qaatay cod soo baxaya baan maqlay asiib darro waxaan arkay labada koonayaasho sigaar cabayo dab bay weeraafinayaan ila waa maskax mirqaanto aan taydii saliimkeeda fiicnay joogini mid qaladaan ku shaqaynayaa waxaan si labadani way kala fogayna dhexmar najaxo nin shaal xidhan koorkaaga oo eego buniya ayaa labada nin u dhaxeeya shoob labada ninba nin shaal buniya xidhan ayaa madow wuxuu baan ka fikiro wadada hadda koro uga leexto waxa labada nin dhexmar kiiba ku dhacay dhexe qadaadkaasi isku taagay ushiisii wadada si socotana dhagtaga si wada qam wiidiiba 9 leen oo kala kaan anigana madaxa iga baxay ila 9 ka qodob baa halka ilaa halka xiribteeda ayaa dilaacday laba feeroodna way jabiyay laakiin feeray waxa ma ogi saacbada inta ku cararay ayaan kada loobsaday ninka agtiisi labadii nin intay wadada hareeraha uga boodonayna xeen ay leeyahay Ibrahim war maxaa ku dhacay dabadana ninkii odayga halka ka taahay gudcur baa markaa waa gudcur magangooyo tirigna waa ka soo baxay haseeshe maskaxdu waxay ku lumaysaa oo aan madow baad carartay iyo wadada miyana god waxa soo dhan mirqaankan bay ku lumaysaa mirqaankuna sida runta waa wali la jideeyay يعني qofkii wuxuu qarinaya waan waashay kadibna waxa dhacday labadiiba bureed bay sitaan waan u fiirsaday waan eegay war Ibrahim bay ilaa ka sokay imoodaya ninkii la socday waan ka talaabsaday ciribtan ku dhiftaano labadoodii nin waxa la weydiiyay ninkii baa qaaday waxay yiraahdeen ninkan jin baa dirday waxa ku dhacay baa leeyahay Saciid ninkii la socday waxay dadkii ka dhaadhiceeyagu ninkan jin baa dirdiray bay yiraahdeen aniguna xawligii waxaan ku galay maqaaxi Allah raxmahay gabadh loo jaxay magaalo dhexda shaarka iskaga sixray markii aan dareemay waxaan si dhidid waxaan ka badan waa maxay waxaan ogaaday inuu madaxii kala dilaacsan kadibna shaarkayga bixiyaan oo orday hadana shaar ku xidhay shaarka jingada halkii laga furay dhiigaygu halkaas oo kale ku dhacay markaa habeennimadkii markii la tolayay ee la ilaaha ma taqaana war yaa ku dilay ee dadku xashada ma khamro waxaan weligeyba arag iga urinayeen ana qaadka weligeyba la ima dhaafo laakiin soo runta qaadkaas dadka marqaanka la sheego ugu badan ayaan ahaa waxaan ku yiraahdaa nin aan cidi jadideysa ana ninkan jiray inuu go'ay baan u maleynayaa ala xal waxa la soo qaaday ninkii baa dhakhtarkii la keenay oo aniga caawo dhan ilaa yaabana laakiin la tolo marka la iga qaaday waan isweydaarinay waxa ninkan maxaa ku dhacay jimba dirdiray beelaadeen halkii ku dirdiray dalacada siiray imsadii ahayd todobadii barkii ahayd sidaas ordo ninkii subaxii ayaa habeenkii waa la tolo madaxa baran waan sunay anigiina waxaan imideen feeri baa ay burburay kadibna waan sunay waxa la yiri ninkan ayaa anaa ku jiray wuxuu arrimaha jeelinay aniga jimbay dirdiray oo raad ergat kaasna horta mirqaanku ka soo haa marka goormaad isku soo dhacdeen adiga iyo ninka waxaan isku soo dhacnay isagana sawirka eega sreeyga halka xasan cadde uu joogi jiro goobtaasaan isku nimay iyadoo aniga feeraa la isawray marka ninka goormuu xaqiiqsaday marka inaad adigu jeelin ninkii uu xaqiiqsaday in aabaha saaxiib ahayn buu hasan runta ah wax badanna muu noqonin laftigiisa halka wajigaayo isagu dilaac ku yeeshay halka qadaadkana waryar buu ku yeeshay in saruntaan aan faam lahayna wuu ahaa oo waa aad baan soo aqoonsanay markii dambe laakiin waxa dirqi laga dhaadhiciyay ninkan aad jiray anaa jiray laakiin adigu markii waad soo turteen ninkan markii waan jiraa waan ogaa halkaas waxaad moodaa inuu mirqaan ku weeyay yaraaday duqadii azwaka haye maxay kala asleedahay wiil ka soo maray anigu sarunta dadku wixii xigaal buu leeyahay ku sii talax tagi meeyay waxaan halka kaga dhacay anigu dadkii aniga iga mirqaan badnaan anigu la yaabay la yaabtay dadka anigu la sii yaabay waxa kamid ahaa inaan dhalinyaro ah iyo dadka waxba lama magacaabo inaan dhalinyaro ah xogay Dubai buu ku yar maqnaa horaan ugu sheekay ninka kadibna xogay suuqdunihu dalka la yimid saaxiibadii baa soo dhaweeyay guri aroos oo markaa 40kii ku jira ayaa loogu qadi sameeyay aad baa loo soo dhaweeyay dhalinyaradu maanta isu jeceshay kadib markii la soo dhaweeyay wuxuu yiri war bal xaqee qaaliya wallahi barta saafiga iyo meelaha gaafinayo aduu ina geeba leeydi goob baa laga soo qaatay qaad noocan leeyla damba musbaarka ah oo intan dhaxay markaa waqtiyada ragii nin iyo kiliina qaata waan lacag haya markaa haseeshe ragii markuu tii 6 kamid oo isneef ogol ayaa la soo haray guriga arooska hada jeer gelin hore sheekada way socotaa ma taqaana jixda la guraa saacado dambe la isla xayira marka dambe aamus sidii riyo ma taqaana ay xaslay ayaa loo dhaqmaa haseeshe goor dambe uu inankii
oo dasho qaadka ka raago 6 sano dalka ka maqnaa ayaa markuu nus marayo kulayl dareemay wuxuu yiri waryaareen rugby ishu ka shaqeeyay dibra baraarahoodii waniyo dabba la isulay buulan waxa la war qaadkaad ka raagto ordo meelo xamaam ku galay biyo showdeed dabayshu babisayo taangiisana ku jiray ayuu barta dhakada iskaga furay hada jeer qofku markaas ama kuliyay biyo cagaha laga soo bilaaba dhakadu iskaga shubay inuu ku wareeray markii wareey shaar buu soo qatay gamcuhu soo galiyay dusha uu ka soo baxay guriga iyo maxla xamaamkii halkan daarada guriga laambad weyn baa ku xidhan 5 dumar fadhiya gabadhii guriga lahayd xabariyteed intii la shaqeynaysay qaar soo wareegay weelkii dhoobada inankan maanta lagu macsuumay way masaxayaan mar yana way taawaadaynayaan inankiis ayuu ka soo baxay xamaamkii dadka dumarkii oo naxay oo shoogay ayaa xagga gidaarka weejiistay dareen wuxuu inankaas iga sheekay wuxuu waxaan maqlaa iyagoo xamanay waxay leeyihiin miyaanu inankii maanta ahayn miyaanu inankii la macsuumay ahayn maxanuun baa u qabsaday hada waad aragtaa intaas markay islaadan baan guriga galay حسنا شمر بكو قصنا والله يا أصل مو مرقاي وما حدا هاي والمريا هاجمة اسمه إن الله وريا والله حمامكم كسوي لا يقول مو أورب مع مريا روك رأي سعره ونقضي حسنا شد دمر كي وصي مري حقه ذو جاي يحول يقص مي بلي سكر عليه هذا ولا المرد ويتولى أنا وقاوم بعد ظهر مرة لا يمكن قاوي وحياة ما نقول ياكل فضل وحياة كسمركها والد الرسمي قاعدين وقابتين مركا مسكحة أما مركان هلا قش ياكل ama wax yaro kale ha lagu sheegay maskaxdu halkii ilaahay dhigay laga dhaqaajiyay ayuun bay noqonaysaa taas ilaa hadda waxaan maraynaa marqaankii iyo jaadka ma jira mid kale oo kamid ah asxaabtaada oo wuu jira in odaya oo odayada dhalinyaro ah oo gel jira waliba aha ayaa soo muddo qaad ka mara qaadku wuxuu ku dilaa markaad waxoogaa ka maqan tahay ee dootana maalin aad bilowdo waliba qaadka habeenkaas soo haray hadaad cuntana مرقان سيادة أبوها كدب